ودين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دماوي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة كيسان أنت من حقوق بندونا إن شاء الله وترين وكوساب سن دور شيء سوتشرا كو وحياة فرا بدن أمانتنا هيسوا كم إذا ilmaha yar quraanka la barayo iyo weeyga ugu sahlan loo bari karo marka hal doona sida quraanka loo dhigo iyo sida ugu sahlan ilmaha loo bari karo lambar 2 waxa noqon doona la dhaqanka ilmaha si ilmaha loo dhaqmaa macallimiin fara badan dib iska haysta oo markay quraanka dhigayaan xogaa qalafsanaan iyo adag waan dhex gari doona insha Allah saddexaad waxay tahay yaa macallin ah waxaan ka hadli doonaa macallin yaa macallinka koobaad waa waalidka laakiin waxaan u naqaanaa macallinka quraanka dhiga ama madrasada jooga ama iskuulka dhiga laakiin waxaan dhahnaa macallinka waa waalidka sidaa daraadeed waxaan inta ku sharixi doonaa insha Allah buug oo la yiraahdo tashiilu qiraa'ati alqur'aan haddii la ingiliisheeyo saarta ingiliis baa ku qoran waxa weeyaan how to read and write Quran easily sida quraanka ugu sahlan oo loo akhrin karo loona qoro waxaan u dhahayo faahfaahinta dib ka arki doontaa buugaan uu ku socdaa qof kastaale oo wuxuu ku socdaa waalid macallin quraan dhiga iyo qof soo quraanka dhiganayaba sidaa daraadeed su'aalaha imaanaya ah macallin ma tahay ilmaha quraanka ugu dhigta hikaadu ma ku dhibtaa waalid ma tahay ilmaha iyo quraan dhima isku qabaan qof quraanka baranaya adigu ma tahay qof quraanka baranaya hikaadu ma ku dhibtaa waxa soo dhan inta kaga baga doonta insha Allah kaliya time si fiirso waxaad arkaysaa mararka qaar kood qof waalida oo ilmo quraan bara oo madrasa geeya ama macallin quraan dhiga inaad training baa jira halkaan macallimiinta maanta wax loo sharaxaya kale akhi time ma hayo wallahi busy baan ahay waxa laga hadlayaa waa shaqadaada waxa laga hadlayaa waa sida ugu sahlan oo hawsha ugu gudan lahayd waxa laga hadlayaa waxay tahay waajibka Allah subhanahu wa ta'ala oo gudanaysa ugu fiican oo gudan lahayd marka aan soo socono insha Allah haddaan xagga u jeesto buugaan intuu ku daaran yahay san horaba u sheegay magaciisa waxa la tashiilu qiraa'ati alqur'aan wa kitaabatihi si quraanka loo akhriyo akhrinta quraanka fududayntiisa iyo qoritaankiisaba English waa lagu qoray how to read Quran and write easily waa buug u qoran sida quraanka u qoran yahay buugaag fara badan maanta aan isticmaalno sida quraanka uma qorna sida daraadeed ilmo fara badan 5 sano 6 sano madrasa tagayaan mana qoraan mana akhriyaan dambiga iskale koow macallinka iskale dambiga laadna yaa leh waalidka iskale ka saddexaadna yaa iskale qof kastaale oo og in qaladkaas jiro oo wax ka qaban ba iskale waxay dhahaan in kunta la tadri fatilka musiibatun haddaadan ogeyn waxaan dhib baa ku haysta way in kunta tadri fal musiibatu a'zamu hadda og tahay dhib inaan ku jirto qalad jirana waxay dhahaan dhibaato ka sii weynta maxaan ka wadaa haddaan ognahay quraanka aan dhigno macallin ahaan in wax naga khaldan yihiin wixii aanan saxaynin dhib baan haysta haddaanan ogeyn in qalad ku jirnana dhib kala sii jira inaan qalad ku jirno ina ilmaha quraanka si sax loo barinin iyo qof kasto xataa hada baran dur ha weynaado inaan loo barinin maxaa ku cadeynaya inta ka tusinaya insha Allah la soco one by one u fiiri maxaan ka bilaabi doonaa quraanka waxay dhahaan quraan alif xamala ka qalocday al-baqara kama toos qaladka ugu koobaad alif aan galnaa alif ba ta soomaan kaasaan ka galnaa hadda insha Allah intaan ka boodinin buugan waxaad ka heli kartaa meel kasto yaala waxaan filayaa only intaan ka ogahay Australia ma yaalo laakiin adduunka inta ka dhan waa yaala marka dad badan ba soo weydiiyaan Facebooka email soo qoraa xigee buu ka helna waxa u baahan tahay inaad email soo qortid ama telefoonada aad wacdid even haddii muqdisho waa yaala xamar oo keli kartaa kaliya waxa u baahan tahay telefoonada inaad wacdid ama email soo dirto way heli doontaa insha Allah online hatta ku gadan kartaa laakiin online waxa kaaga sahlan inaad soo wactanto hadaan 10 bilaabo waxaan ka bilownaa wax leedahay xuruful hijaa waxaan ognahay ilma kasta luqad kasta wax ka bilaabataa xarfaha English wuxuu leeyahay consonant iyo vowels oo isku dhex jira oo ardayda wada bartaan laakiin anagu waxaan naqaanaa ilmaha xarfaha la baro xurufta la baro xarakaadkana xilli dambe la baro taasoo ku keenta dhib fara badan ilmaha u keensata iyo qof soo quraanka baranayaba maxaa sax ah in la isku dhex wada wixii waana ku sin doonaa insha Allah haddaan dib ugu laabto xarfahayga alif ilaa ya baa inta ku qoran laakiin laba dhib baa jira koowaad waxay tahay nutqiga ama pronunciation-ka dad badan way ka khaldan si xarfaha loogu dhawaaqo sida ugu dhawaaqaysa xarfaha ka khaldan tahay wax ma ku hagaagayaan waxaan tusaale u soo qaataa ilmaha quraan u dhiga waxaan ku yiraahdaa haddaan English alphabetka A B C D akhriyo ka warrama dhama fiicanta English waa fiicnaan doona waxaan ku yiraahdaa ay bay say day akhriyo ka warrama dhan acuud billahi qashin baa ka soo baxay luqadda broken English baa noqon doonta waxaan ku yiraahdaa quraanka xarfaha ka khaldan baa wuxuu keenay in quraanka inuu broken quraan noqdo horta ma dhawaaqa in la saxo
haddaan tusaale insiyo qaladaadka aan samayno halkan waxaa ku yaala waxaan naqaanaa alif wax male ba hoos ku hale ta kor loo sama waxay ku dhamaan jirtay yaa hoos ku labari laakiin maanta kan waxaad aragtaan yaadi wax dhibcaan ma laha inta yada noogu taala wax dhibcaan ma haysato yaa hoos ku labalaydi meesha way ka baxday haddii luqad kasta ha ahaato English de Soomaali de haddii hal xaraf ka khaldan yahay ugu yaraan markaad wax akhrinaysid waad gafaysaa Soomaa Quraanka yaada dhibcaha haysato loo yaqaan yaa hoos ku labalay waa laga soo waayay wax kasta samee ka raadi kitaabka dhan fur ka soo hel ma ka soo helaysid sidaa daraadeed waxa ku soo baxaysa inaan qalad weyn ku jirnay qaladkii inaan saxno aan diyaar u ahayn mararka qaarkood dadka qaarna diyaar u yihiin laakiin waxa laga yaabaa inaysan helin fursad ay ku sii lahaayeen waxa ka soo buugaan ka soo baxay insha Allah waxaan sameyn doonaa inaan ka tusiyo kitaabka Quraanka okay yaada Quraanka soo gaarsan ay qoranta meesha yarta ka soo gasho waxaan ku soo qabanay meelaha ugu sahlan fa bi ayi aalaa waatana anoo markaan qorayna macallin ahaan arday Quraanka loo qorayo fa bi ayi laba dhibcood ba inta loo saaraa ha midda inta la saaraa kan weynayo midda inta macallimiintu saaraan midda inta la saaraa ha laba dhibcood baa loo sameeyaa هذا أرضك كتابه كلا فريا فبأي آلاء يأتي واحد بعام ما يسطو الذي وحملها يأكستو واتقوا قرآنك واحد بعام ما يسطو ما حد عين مركا كتابك وحن كل ما برني كتابه قرآن وحلو يقانا رسم العثماني جمهور العلماء فهمي علماء ضمان تود واحد قبان ويذكر عسيه إنه واجب تهاي كتابك إن لا فلو قرية ولا راع سوق قرآن خلي بدل كريم dad baa waxay gaareen markay arkeen hikaada ay dhibtay quraan in dhicin waayeen inay Ingiriis soo qoreen oo bismillaahir rahmaanir rahiim ma aqriyeen taasna culimada qaar waxay ka soo qaadeen inay kufriyaad keeni karto khatar ay tahay ujeedada kale waxay tahay marka xarfaha naga khaldan xarfaha saxno hadaa xarfaha saxiid waxba ma ku hagaagaya see ku sixi kartaa inaad dhigtid buug quraanka soo qoran oo qoran raadi hadaa heli karinin ama inaad raadsaada rabinin kitaabka quraanka ilmaha ka bar buugaag aan quraan loogu tala galin akhri ha dhigin okay labada shay ugu muhiimsan waxay tahay xarfahan in la saxo dhawaaqooda xarfahana xarfa sax la baro dhawaaqa in la saxo waxaan kaloo naga sii maqan yada saan u qoran buugteena kuma qorna macallimiintu ma qoraan ardaydu ma yaqaanaan waligeed ma aan arkinin laakiin waxaan dhahnaa qofka aan yadaan qonin ma akhrin karo suuratu quraysh li ilaa quraysh walaa soo akhri karin maxaa cadeynaya hadda ku tusina insha Allah si marka ay u cadaato إن واحد صح آخرينه واحد صح على دقو، أوكي؟ مصحف كان تجي إن شاء الله وهنصبح عندنا سورة قريش آيات الله بعد أرض دي مع الأميريو وأرض دوش الله يحفظ سيوا ماشي الضوء آخريان واحد مركز صبر الطمير بيت الله وأنا هنا ما شاء الله القرآن كتابك آخريان الحمد لله كتابك آخريان لكن هو قياسان ما هي واحد صح آخرنا يعني وهذا هنا وها واجو بريا خويا الصوماليات أما أباها الصوماليات oo Europe iyo North America ku nool markii ilmihiisu ay teenage noqdaan inta ka horeysa uu sii wada leh markii xogaa cunug soo weynaado oo teenage noqdo quraanka akhri walaadku ila waxa cunug maalin waba si loo sii garaacahay meel baa la iska geeyaa wax ma loo soo sheego okay ayadu hore wada rataan li ilaa quraysh ilaafihim billahi alaykum qofka marka aan yaa asla barin sa ku akhrin doona waxaan sheegaya waxaan iska sheegaya ma aha waa wax tajriba aan u sameynay experience boqol la qof aan ku imtixaanay أظن مال بعدين بوج المها القرآن خرجته أما أضام معلم تأخذت صباحي حرف صحيح مكوي أنا القرآن كمايا وقرآن هاي سيدة عربي وقرآن سيدة قرآن وقرآن وقرنا سيدة درجة السؤال بواحد هاي ساعة معلم بعد هاي مدرسة كفرا العيب بعد قاعدتها ضدك ورقة صحيحة أنا القرآن عليه سيد ما قرآن بعد تمس عربي عليك حدادا لجنين حرفها عربي القرآن فول ما دي القرآن عربي عليك أجريمنت هي صحيح صح ما نقدونه حلال ما نقدونه أرضنا بري قرآن كأخره وإذا دبك أدو كوصل لابن دونا سياد رادد سي واحد صح ضدك أوبرتيد ترين يرقعوا حاجة دبوا الله فريصوا آخري لكن أنا ترى والله سبنت عركي واحد برتان الله فدينا يا قفك إقلافنا وفوق قيلنا يا أرضي أخروينا وانقرع يا عدالة أخذ عدالتنا حاجة وإيم الله صح يا هذا نوع أنا واحد كهلي كرتا بوقت أو قرآن سي قرآن كوقرأي هاي بوقان أدب يري هاي وفير لايت وهلا تسهيل قراءة القرآن حرف كسا كهلسا حركة كسا وكهلسا إن شاء الله وحيالها أن ربنا نقتصيه وحكم بدو دعك واحد دونتيد حركات كما شغل كقرآن كا بقول كيوا بقول كمبليت وأنا يقل دينك ما عضينا يقول سي إن شاء الله هذا خاص يصعدوا وحنا هنا هاي إن عمك حرفات لأنه أنا نقدر على قف وحلا دها قول ما واحد زيادة سدا وهو واحد سياسة لا بس شيء مدود
إنه ogaado in wax ka khaldan yihiin wixiina uu raadsho ama inay wax sudfa isaga dhacaan oo soo maalin ka fadhiya intuu video dhagay fiirsado ama darta fariiso sheekh akhrinaya oo la soo kulmo labaas wax lagu faa'iideystaa ina wixii iska ka yimaadaan si oo aan wala ka ahayn in aad u aarayso cilmiga aad u fariisato ina u fariisto baratana waxa kugu qasbaya ina horta aamino wax ka khaldan yihiin okay marka hadii aan qirno macalahan wax naga khaldan yihiin wax dama noo soo baxaya horaan waa socon doonaa insha Allah xarfahan marka haddaan saas u dhigno oo xarfaha hore saas aan soo dhigno waxa imaan doona xarfaha saan u qoran alif ilaa ya qof kasta la uu xifdin karaa ilmaha waxa ku badan macalinka ku khaldamin alif ba ta adoo way akhriyay ha ku khaldamin waa xifdin karaa laakiin ogow xarfaha ma kala yaqaana maxaa ku cadeynaya hoos baan socon doonaa kana keenaya insha Allah inta waxa ku qoran these are mixed Arabic alphabet حرفيه عربي ولا اسكو دحقصay ba inta la isku keenay ardayga halka inta ka bilaaba salka u dambeeyay geyn waaya xarfaha akhrin waaya quraan haw bilaabin ninkii yaqaana gabay bacd laha kamid aha aqdada ninkan toosinu hawa cibaadeysan da aqdada sax ahayn oo ilaahay wax sax ka aaminsanayn salaad iyo soon isku lugeyn baba qof aan xarfaha carabiga quraanka xaruftiisa wada aqoonin quraan haw bilaabin haddii kale to waxa ku dhici doonta maalin uu gaaro quraan fara badan inaad aragtid ardayga wax ka khaldan yihiin isku dayo inaad saxdo asix weydaan because ma yeelayo alifan ku celiyo wada alif ku celinaysa kullee wallahi tan taagaya because quraan buu bartay sheekh baa ka dhigtay xarfahana ma yaqaano وانا waxna ugu dhacmar baale xarafan noocan oo kale ta macallimiinta waa la weydiiyaa macallin xarafan muxuu yahay ma dhawaaya xagaya kaya la ilaha illa allah inta ay kuma taalo okay xarafan ya lama dhaho waa hamza sida alif u dhawaaqa okay xarakaatu qaata hamsadu qaata waa iska hamza caadiya waxa meeshan ku yaala waxa dhahnaa waa kursi ma ahan ya ma aha maxaa cadeyn doona page dhan baa loogu talagalay xarfaha iyo say soo bedelaan oo ku arki doontaa insha Allah haddaan hoos sii socdo way badan yihiin labadan ta macallin la weydiiyay macallin noo sheeg baa lagu yiri kana waa wiil waliya ma arki jiraan waa naqaanay laakiin waxa lagu yiri macallin kana waa alif maxaa cadeynaya you will see haddaan ku doonaa insha Allah okay halkan haddaan nimaano waxa dhacda aad u fara badan ardada in loo dhigo alif ilaa ya ka bacdina la yiraahdo ma sha alif u dhameeyay quraanka loo bilaabo ama inta quraan loo bilaabo in loo bilaabo waxa la xarakaat ba ta alif la kordhabay alif la hoosay sama laakiin aan xarfa yar rabalaba ilmihi la barinin qofka marka xarfaha yarka aad barin maxaa dhacaya bari quraanku ugu tagi doona mana fahmi doono marka ma loo waxyoonaya waa maya si aad raadeed waxaan rabnaa in ardayga la baro xaraf yar iyo xaraf weyn isku hoos yaala xarfiyo isku hoos yaala yar iyo weyn inaad bartid si ay u noqoto clear waxa dhigayso haddii kale ta waxa dhici doonta inaad maanto dhan daalaysid miskiinkan lacagta laga qaaday oo hooyo abal ka soo kaxeeyana oo soo fahminin okay marka inta waxa ku yaala xarfiyo la isku hoos dhigay yar iyo weyn isku hoos yaalaan haddaan hoos sii aado inta waxa ka bilaami doona xarfaha maanta idin dhahayay alif ka nooc kala arki doonta oo weyneenaysa isku aragtaan insha Allah halkan alif da taqaanay kan waa alif kan waa alif falato kan waa alif waxa dhan waa alif weeyaan laakiin maxaa cadeynaya waxa laga yaabaa in qof dhahooreed waa riyoonaya waxa alif miya 99 arday intaan ka qaadnay waxna xarafkan sheegay waxdan waa lam markay quraanka akhrinayaan alifka noocaasi ardaydan uma tirsana ma noo tirsana baa anaga maxaana keenay weyga aan u dhignaa khaldan ma dhigayno oo maxaan sameeynaa saa arki doontaa markaan gaarno insha Allah oo gaarsin doona insha Allah waxaan ku dhignaa alifan waa alif wax ku taagmo wax dheereeya waxaan saarnaa calaamad noocaas oo loo yaqaan dadka reeb u yaqaanaan reebna ma aha in la saarana ma aha baba reebna ma aha asalkeedii in la saarana ma aysan ahayn okay alif marka noocaana waa badan waa la yaqaanaa laakiin labadan rab inaan ku tusiyo tusaale ahaan saa u fahantaan meesha quraanka ka soo galaan iyo say alif ku noqdeen dad fara badan quraanka way akhriyaan laakiin waxaan diibil uma yaqaanaan intaan iska hilmaaminin macallimiinta quraanka akhrinayaan sax way akhriyaan kana alif buu akhrinaya laakiin markuu sharaxay ardada u sheegayo balaayo sheegaya markaas balaayo kacaya okay kitaabka ku laabanaya musxafka meesha ugu horeyso aan ka soo helo baan kaaga soo qabanaya insha Allah haddaan tago sanahan suuratul bayina lam yakun ladina kafaru haddaan suuratul bayina tago horaan ka soo heli doona insha Allah suuratul bayina ma iga dheera hooba kor soconaya insha Allah waan soo dhaafay haddaan soo baxsho wama umiru halkan waan ku yaala waa yuqiimu salaata waxaan ma ahan waaw okay waa alif ardaygii markii la yiraahdo waa waaw waxaani quraankiina hadda uu akhrinayo
khalad baa u soo baxaya sidaa daraaddeed waxaan dhahnaa xarfaha qofka hala baro si saxan ah loo baro si quraanku uu noqdo wax sahlan oo akhrin karo okay waxyaalo fara badan oo hadda wataan dhahay alif waxaan saarnaa calaamad noocaana waan arki doonaa insha Allah haddaan meel kasta tagno waxaan u naqaanaa in calaamada noocaas ay tahay reeb ama sukuunna waa reebna waa af Soomaali urduga jazam bay dhahan jazma oo carabi ah laakiin jazam urdu isticmaalaan marka calaamadan reeba ardayga la baray quraan completely duu akhriya qalad baa akhrinaya waxaan dhahnaa waxay la mid tahay qof akhrinaya erayga ingiriiska la knife kaybo ka bilowda hadda arday qof akhrinaya knife waad ku qosaysaa hadda ingiriis garanaysid waxa la mid ah wallahi qofka calaamada noocaas reeb u yaqaana quraanka uu akhrinayo waxa la mid yahay qof ingiriiska erayga knife u akhrinaya marka macallin baa la weydiiyay oo aan koow ahayn laba ahayn saddex ahayn boqolkiiba dadkana quraanka dhiga ama soo dhigtay calaamadan reeb baan loo baray markii quraanka macallintu akhrinayaan inay khaldaan ma aha صح بأخريان كل صح بأخريان قرآن لكن مركز صراحة يسد أما الله كل يسد أما بو كل يسد بالله عمدا ورب أرض كان مسكين كا ولا جا وذي ومال لجيء ولا يري بريت تست انت لا يقعد وحقر صام حقري فرح على قصة قرعي هذا ولا صها بعريا أوكي محا صح وأرد أن محا على ما سيقول الإيمان إن شاء الله أوكي هنقول أبنا يا ألف يا هون نحتري مركز أنت نوع نوع ألف marka inta alif ay noqdaan oo arday alif aan aad bartid wuxuu sii baran doonaa xarfo kale oo ka sii fara badan intaasoo baa baranaya intaana taaba baraysa taaha noocaana waxa laga yaabaa arday inuu kan yaqaano qof inuu arday taa garanayo laakiin labada aan weli arkeenin dibkan haysta waxay tahay macallimiin fara badan waalidiin fara badan waxay u haystaan arday wax inuu yaqaano wallahi waa loo sheegay yes maanta u sheegtay laakiin bari hore ka hilmaanaya waxaan ogtihiin oo meelo badan ka jira oo Europe iyo North America lagu haysto intiina macallimiin ogtay ka siman tihiin ardadii shalay idin keenay oo hikaada la baray maanta alif baa ma qori karaan macallin waxaan tagay madaraso ay dhigtaan dhowr boqol ilmaha waxaan iska iri si sudfa ilmihiin quraanka hikaada ma yaqaanaan waxa ma sheekh waa yaqaanaan ma sha Allah kan wuxuu marayaa cankabuud kan wuxuu marayaa sawtu namli waxaan ku iri 10ka ugu fiican kana 10 baa la soo socay 10ka ugu fiicnayd 5 baa xarfiyo qortay midka u fiicnaa dhowr 10 buu qoray شو كل واحد يهان ويفوق واهل ماني معلمين تاعهم كيرا مركب ماشي واحد الله فدين وزير مركب المها إنجليش هذيكتا أو نقول يو كي بنتون يو كنول A to Z واحد كوقران 30 seconds أخير ولا تما هي الماما يو أبي ما خد الشيء مايا ولا بري سي الله بري واحد الله بري سي أنا عادي أحين أو سي أدو أنا أقبر نخدون أنا واحد ربنا أما معلنا هذا أما والد هذا أرض إنه شنبري هذا ديكتو بري قرآن كأخريو سوالي واحد عن شنبري شيخ لقمنا قصة سما قاد كان هيستا waxay tahay farsamada naga maqan waxay tahay waxaan weydiiyay waalidiin fara badan imiso sano ama imisa bilood ama meeqa maalmood baa ilmahan A to Z lagu baray wallahi bil baa lagu baray laba bil baa lagu baray waxaan ku yiraahdaa maya 3 sano la baraa xarfaha ingiriiska ilmaha oo maxaa maalin baa la bari karaa waxa la rabaa in madaxooda lagu qufulo sidoo wali isku hilmaaminin hadda waalid tahay ama macallin tahay ilma quraan ku dhigtaan ama ilma quraan u dhigtid North America Europe ku nooshahay waraqa cad soo qaado waxa ku tahay ilmaha alif ila ya iqor haduu ku qoro ilma khatar weey haduu laakiin qori waayo markaas waa ku bariyay adigana ilmaha ma sha Allah quraan kitaab ka akhriyaan yes laakiin xarfa ma yaqaano bari ma kaanay macallin ay keentay madrasa uu keento ilmaha tirada quraanka la barbu gaaray dugsiga baan ka soo saaray cali waa u jiray quraan ma ka dhageysanay aniga waxaan alif ila ya iqor markii qori waan ku leeyahay eedo ama adeer ilmaha ka dama yaqaano markaas ina uu dabilaysa wallahi kiina habarto in ka arko dhacday way khayaan macallinkan miskiinka farsamada ka halowday maanta kood ma alif ku baray wuuna isaga tagay waxyaalaha khaldamaha kamid ah oo ma intina ka simantii macallin hor fadhida macallimiintu waxay ku dadaalaan ilmaha in quraan dusha ka xifdisiyaan kuna celceliyaan sida u hilmaaminin waxa leedahay bari waa subac maanta waa dareeris wadana waa subac hadana waa dareeris waxaan ku yiraahdaa maxaa danta kale maxay tahay subac dareeriskan inuu hilmaaman ka baqayna hikaadi ma ku laabateen ma waa u dambeysay hikaadi loo hilmaamay ayada hikaadana waa la hilmaamaa quraankana waa la hilmaamaa si aan loo hilmaamin waa inaan sheekada isku wadaa marka labadan sheeko waa isku dhex socdaan macallin kastaale oo madrasa madax ka ah oo kala saara hikaada iyo quraanka oo yiraahdaa gruubka hikaada ay bartaan kuwana quraanka ay bartaan uu fashilan yahay خلاص oo dhamaat ilmana kana jixmayaan meel ka gaarimayaan maanta ardayga laga wado madrasada la geeyay waa u bariyay wallahi wala soo habaaraya hikaad ma yaqaano 5 bil 6 bil hikaad ku hayanaya mararka qaar kood 2 sano qaar hikaada ku hayaan ardayga daalay
oo lafiya ka jabeen oo maaga boorta soo saaran maxaa barata hikaada la idhiga alifkana ma yaqaano waaga u dhameysay baalle quraan baa lagu bilaabay mar uu gidaaday ilmaha noo jooga North America iyo Europe sanadka uu horeeyo waa in quraanka dhowr jus la baraa la babsiya haddii kala shaydaan ku weynaan doona iskuulkay gaari doona high school ka noqonaa high shaydaan high school buu geli doona markaasuu environment ka duwan wixii dhan geli doona madaxa adkaan doona shaqada ku badan doonta assignment iyo wax loo diri doona homework fara badan anagu intuu yar yahay waqti ha looga faa'iideeyo 2 sano hikaada ku haynaya waa khayaano aan geel loo soo gaban weeyaan inaad bartida xarfaha waxay kugu qaadan doontaa wax aan dhamayn 3 asbuuc laakiin waa dariiq sax marta kow alif bar ka bacdina xarfaha si isuba bedelaan bar ka bacdina xarakaadka barada ku tusina kullu insha Allah laakiin inaad tirado waxaan ku haynayaa dhowr sano ilmaha hikaadan ku haynayaa quraankana wuu nici doonaa asagoo dhagax noqday oo daala quraan u bilaabi doontaa ka bacdina intuu sanadba gaarinba wuxuu noqon doonaa dhagax ka fadhiya meesha marka adaa ku ciyaartay hikaadii la rabay inuusan hilmaamina xooga ma ada saarinin وانا قانا والدي فربضان انت idin yimaadaan dhaha ilmaha ka waray quraan ma raba quraanka in la xifdisiyo ilmaha maxay dhibaato leedahay dib aan hadlaya insha Allah harfahan marka saad isu bedeli doonaan xaraf kasta saamka isu bedelo ilmaha la barinin wax ka hagaya malaha inta ma hadda ku sharaxay insha Allah xaq mudujsan okay waxa soo harfaha meesha soo galaya harfaha noocaasi waa kuwa quraanka lagu isticmaali doono okay idan hore u sii socdo xarfaha badankooda waa la yaqaanaa laakiin qaar waxa noo socda dhibaato ka taagan tahay hadaa inta imaado halkan waxa igu qoran dhowr hamzo ana waxaan qoran jirnaa alif gaab hadaa aqoon jirtay in kan yahay hamzo ama alif gaab u taqaanay kana waa soo kaleeto waa la mid okay kana waa kaleeto hamzo kaleeto weeyaan okay mid kana waa hamzo kaleeto okay hadaa halkan ma saddexdan isku agta saddex hamzo weeyaan kan waa hamza kan waa hamza كان وهمزة معلمين وادي دي ولا أوجي واحد هذين قارك واحد كشيء ماله واحد ويدي معلمين دور بقول جاري كان شيء ما هي تهاي أقول لهن القرآن كواحد مصر قال خرافات وي ما له كنت لاقي قاري ما بوق قريسي وأكو خلطان تيدهن أوكي مركا لكن مركا القرآن لقيت سوى سكعم سوحنا الحمد لله والله بالله رنسوي كانوا خلاتو يبقى ونقانا كان وابا ونقانا لبعض عن اسكو أكتر الله هل آيات بيكو هل قريب بيكو جيران قرآن meelaha macnaheedu balkan waxa wada ayuu wada jooga hadaa fiirsato waaqic aayada 22 lu il maknuuni kitaab musxaf fur haas u qoraya laakiin ma fiirina iska akhrina ardayga bari macallin uu sheegay waxa leeyahay waaw ha war meesha waa kuma yaale ilaahay ka caafiyo subhanahu wa ta'ala si marka ay u cadaato waxa laga yaabaa musxaf haysanin waa tusinaya insha Allah musxafkan soo qabanaya si kaliir u noqoto dika waxa leeyahay bari wadaadku wuxuu sheegay waa in loo laabasho si aan loogu laabanin alwaaqica inta ku taala aayada waxaan tagi doonaa 22 insha Allah 22 dana khaldanayn aayada 22 daan tago waatana ka amthalil lu il maknuuni okay macallin badan oo farta dhax ka qana dhil hadda wadaadka la hadli lahaa waxaan ilaa khalad baa samaysay hadda iga harayaan marka okay marka waa hamza kana waa hamza waxa ila yaa badnaa macallin wax sharaxay aad u badnaayo dhowr boqol gaaray waxa u dhahan markaan soo saaray xarafkan intaana quraan ka tusmay waxa u dhahan hamza miyaa si loo dhawaaqa waxaan qori waxay dhahan waa ugu qosfay ugu qosle waxay dhahan waa riyoonay tahay dhahan laakiin markaan soo bixin qori ii akhriya waxay dhahan waa hadda maxaa shay tama qori marka in ardaygeena wax u dhigno wax kale in akhrina laga rabo waxa weeyaan cudurka kaaga la fardaha hadii loo goodo dameer dawada lama gaaray dhahan waa dhibaato jirta marka dibkaas si looga baxo waa inaan dib u laabanaa haddii kale waxa imaan doonta khaladkan haysan jiray oo ahaa in aan waxyaalo fara badan oo la rabay in la akhriyo aanan akhrinin okay intaasoo hamsama waa sheegnay waxa kale soo jira asna yaaha noocan intaan oo yaa ba quraan soo gasha okay yaa noocan wada helaysa quraanka okay yaa saan quraan waa tan waa yaa bilowga gasha tan dhexday gasha labadaana dhamaadkay galaan okay labadan yaa quraan dhamaadkay galaan mararka qaar dhexday gasha hadaad gashid suuratul baqara hal makhro baa waxa soo gala 13 jeer ibraahima haas ay qorantay yeedo ibraahima tan ma haya saas ay qoranta 13 jeer hal makhro baqara ku jirta mana naqaan mana dhigno marka hadii quraankii saan u isticmaalaya yaada noocaana annaga tirada noogu jirinin macnaheedu qaar baa waxay waxaan yaa si la dhahayo waxay soo gashaa bihi ahay gadaal bay damirtay raacda ma raacday iyadoo xaraka la jirta oo fatxa iyo kasra iyo damaqada quraanka soo helaysa mana dhigno okay marka
marka hal makhro soo gashay 13 jeer hal makhro ayadoo xarakalo oo mustaqil oo meel taagan ay jirto ardaygiina aan la barinin akhiyo ma la khayaan inta lama khayaanin khayaano weyn baa dhacday ha taasna ma la isaga har doon adduunka dhacday akhir dhacday walahi wala qabsanaya marka ka macallin ahaan waa in arrintan lagu baraarugaa yaada noocaana kitaabka ma ka soo helaysid sida daraadeed hadaa macallin dhigtahay quraan dhigtid yaadan ha dhigin ha qalinka qaado ka tirtir dhibaxaas meesha waa tirahdaa wax ka jira malaha yaada noocaana musxaf ma laga helo yaada quraan keelida waa yaada saas qoran wax dhibca ma haysato baada maxay baa ku tahay hal dhibca haysataa taaduna laba kor ku leedahay sama marka yaadi hadaan dhibca aysan haysid oo tira bari iska baran doona ha adoo baran akhi ma loo waxyoonaya maya ma loo waxyoonayo waa in wax sax la dhigaa marka okay waa ka sii tagi doonaa insha Allah halkaas markaan arday u dhigo waxaan ku sameyn doonaa inaan test ka qaado imtixaan ama exam ama daalku tajriba xarfahaas oo dhan la isku dhaxyaa sheeg baan dhihi doonaa hadduu dhaho kana waa lam ha kana waa alif saan u taaganna waxaan leeyahay dib u laabo waliga Allah arday ha u sheegin waxyaalaha basic ah hadaa u sheegtid waa waqti baad ka dish kulliga degdeg baan ugu jeedo ordayna gab dhameeyaan raba meeqa waxa soo weydiiyay macallimiintu meeqa bil baa lagu dhameeyaa buuga meeqa wiil baa lagu dhameeyaa xagee u cararaysaa maxaa ku cirsanaya time c waxaan idin soo sheegay in a to z englishka ilmaha 3 sano lagu baray anna waxaan rabaa buugaas oo dhan oo buuxa inaan bil ku dhameeyo hada khiyaanaba ilmaha waqti ka dilaysaa quraan baran doono waxa dhacaysa wax la marartu wala adri waan soo mana garanayo taas dhici doonto taasna waa lugooyo marka xarfahan waxa tira akhri aduu garan waayo ku celi beeji horeeto inta ku jira la tira dib u laabo inta ka soo helday ha dhima laha halkaas ku soo helaya oo soo raadinaya aduu shaqada ilaahay ku soo tirada ka badatay waxa arkaysa macallin 20 ilma wax u dhigaya hal xabo la dil garanaya inta ka taw ciirsan oo ciyaarayaan waa time management naga khaldan waa in arday walba shaqo u yeelno mid wax qora mid wax akhriya mid diyaal ku reeyaan baras garay quraanka imi aan la dil garay wax ka dhageysto mid shaqo ku fadhiya laakiin inta arday la ii keenay oo meel fariisiyay inaan saa u socday ama loo fariisanayo time ka dhamaado iska laabtan aan wali arkinin waa lugooyo weeyaan waa in macallimiintu ka fakaraan say time ka arday kulli u gaarsiin lahaayeen okay marka waxaan soo xarfahan sameynaya ka baad waxaan dhihi doonaa inaan xarfihiin baro iyo isku dhaxyaacsan haduu garo waa inaan hado dib u laabo soo raadi maado inta waxaan soo baxshay waxay tahay details ka heli kartid ka dalban kartid halkaas kugu yaala ama ka saarkaysan buugasan idin sharaxay waa buuga ugu sahlan oo qofku quraan ka baran karo macallimiintu qofku quraan ka bari karaan step-kan idin sheegay baa raacaysa hadaad u baahatid wax su'aala ama buuga u baahatid ha ka shakinin soo wactan halkaas kugu yaalaan har iyo hameen Facebook soo dir ka soo gal Fiverr-ka WhatsApp-ka waxaad soo wactan ready waxaan u nahay inaan ka caawino qof kasta waxaan sameynaa inaan bilowga shaqay ahayd hay'adda Irshad Foundation macallimiintan tirin sameynaa waxaan rabaa inaan kitaabka loo khidmeeyo subhanahu wa ta'ala okay hadaba buugaas marka waxaan rabaa inuu noqdo buug noo noqdo saldhig waxaan ka bedeli karno waxna ku dari karno talooyinka macallimiintu waa furan yihiin ilaa hadda waxa ku najaxay oo dhigay boqolaal dugsi ma ahan tobanaan boqolaal dugsi baa dhigaan oo wixii kala joojiyeen kana faa'iideen sidaa daraadeed inaan tiraahdii bartaan fadhinaya waxaa ka fiican inaad wax bedeshid waxay dhahaan qof inuu isaga socdo meel hawda waxa ka fiican inuu qoraal dib u salato wallahi waxba iska bedelaya sidaa daraadeed waxaan dhahayaa saa ay dhageysteen aad baa maasantihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga dhigo kuwa warka dhageysta wanaagana ka qaata wixii aan khalday nafta iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan saxayna ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala ilaahay kadibna adinka aad baan mahad celinaysaa u dhageysateen wajazaakumullahu khayran wa billahi tawfiiq